tan iyo markii ay maanta soo baxeen warar sheegaya in madaxweynihii hore ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya mudane Sheekh Shariif Sheekh Axmed laga celiyay garoonka diyaaradaha aadan Cabdulle Cismaan ee magaalada Muqdisho oo ay dowladda federaalka isooristaa ku samaysay madaxweyne Sheekh Shariif oo doonayay inuu gaaro magaalada Kismaayo ee xarunta ku-meel gaarka dowlad goboleedka Jubbaland halkaasi oo toddobaadkan la filayo in ay ka dhacdo xafladda lagu caleema saarayo madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaan Madoobe oo dhawaan ay dib u soo doorteen xildhibaanada baarlamaanka dowlad goboleedka Jubbaland. madaxweyne Sheekh Shariif Sheekh Axmed ayaa markii laga celiyay garoonka diyaaradaha aadan Cabdulle Cismaan waxaa la keenay hoyga uu ka degan yahay magaalada caasimadda dalka ee Muqdisho lamana garanayo ujeedada dhabta ah ee dowladda federaalka Soomaaliya ay u celisay madaxweyne Sheekh Shariif Sheekh Axmed oo doonayay inuu gaaro magaalada Kismaayo. haddaba si xal looga gaaro arrinka muranka badan dhaliyay ee ku aadan joojinta madaxweyne Sheekh Shariif iyo safarkiisa magaalada Kismaayo waxaa hoyga uu ka degan yahay magaalada Muqdisho ka soconaya shirar aan kala kac lahayn kuwaasi oo looga hadlayo xaaladda ku beegantay celinta madaxweyne Sheekh Shariif Sheekh Axmed ee ku aadan safarkiisa magaalada Kismaayo. mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalka Soomaaliya ayaa madaxweynaha ku booqday hoyga uu ka degan yahay magaalada Muqdisho waxaana sidoo kale xubnaha gaaray hoyga madaxweyne Sheekh Shariif Sheekh Axmed kamida madaxweynihii hore ee Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud iyo xubno kale oo ka tirsan xildhibaanada baarlamaanka federaalka Soomaaliya iyo xubno matalaya golaha aqalka sare. guud ahaanba xubnaha siyaasiyiinta ku sugan hoyga madaxweyne Sheekh Shariif Sheekh Axmed waxa ay ka wada hadlayaan sidii loo dejin lahaa xaaladda ku saabsan celinta dowladda federaalka Soomaaliya ee safarka madaxweyne Sheekh Shariif Sheekh Axmed uu ku gaari lahaa magaalada Kismaayo ee xarunta Jubbaland halkaas oo uu kaga qayb gali lahaa xafladda caleema saarka madaxweyne Axmed Maxamed Islaan Madoobe. xubnaha mas-uuliyiinta ku sugan hoyga madaxweyne Sheekh Shariif Sheekh Axmed ayaa la filayaa in ay warbaahinta la hadlaan islamarkaana ay faahfaahin ka bixiyaan nuxurka qodobada ugu muhiimsan ee ka soo baxay kulanka ka soconaya hoyga madaxweyne Sheekh Shariif Sheekh Axmed ee magaalada Muqdisho. Cumar Maxamed Soomane, Universal TV, Muqdisho.